رجلا دعا لله بالقرآن بالخلق الحميد قد بات طول حياته يدعو إلى دين السلام. رجلا دعا لله بالقرآن بالخلق الحميد قد بات طول حياته يدعو إلى دين السلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. 40 حديثا في عدة المسلم في البلاء والوباء. باب الوقاية من الهلاك. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا: ما لك؟ قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. أخرجه البخاري. baabkan wuxuu u baab yahay sida loo doonayo in halaaga iyo dhibaatooyinka dhacaya dadku inay isu kaalmaystaan, oo haddii ay arkaan qof dhib u socda oo bulshada dhib gaarsiinaya inay ka celiyaan buu xadiidkan tusaya. baabulwiqaaya, ilaalin la iska ilaaliyo min alhalaag, baabba la iska ilaaliyo. can nucmaan ibni bashiir radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi: qaala nabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalam: mathalu lmudhini, qofka mudaahano ku sameeya oo maalan dayaca, mathalu lmudhini, qofka dayaca fii xuduudi illaahi, xuduudda ilaahay, waalwaaqici fiiha, iyo qofka ku dhaca. lafdiga almudhin, culummadu waxay leeyihin, ibnu xajar wuxuu leeyahay waxaa aswab ka ah mathalu lqaa'imi in la dhaho, sida lafdi kale ku soo arooray, qofka u taagan. laakiin qofka dayacaya haddii la dhaho iyo alwaaqici fiiha, qofka ku dhacaya, isku macnay noqonayaan. waxaan dhahaynaa markaa mathalu lqaa'imi fii xuduud illaahi, qofka xuduudda ilaahay ilaalinaya inaanan lagu dhicin ee lagu xadgudbin. waalwaaqici fiiha, iyo qofka ku dhacaya, mithaalkooda wuxuu la mid yahay mathalu qowmin, qowm bay la mid yihiinoo istahamuu safiina, qorituur u sameeyey doontaasoo laba dabaq ahayd. safar bay badda ku gelayeen, dad badan bay ahaayeen, way isqabsadeenoo waxay yidhaahdeen qaarna kor baan rabnaa, qaarna hoos baan rabnaa. doontaa laba dabaq ahayd. ayib, fa saara bacduhum asfalaha, qaarkood waxay heleen doonta qaybtii hoosiisay ee badda iyo biyaha xigtay, aan idhaahdo biyaha ka fogeyda hoos jirtay. wa saara bacduhum, qaarkoodna waxay heleen aclaaha, dabaqii sare heleenoo doonta, oo biyo markay u baaqdaan iyo ama inay wax dabtaan iyo sahal bay ku helayaan. kuwana hoos baa la geliyey. maxay sameeyeen markaa? fa kaana aladii fii asfaliha, kii helay qaybta hoose, dabaqa hoose iyo doonta kii helay, ama dadkii helay baa yamuruuna bilmaa'i, biyo markay rabaan inay soo dhaansadaan waxay soo marayaan cala aladiina fii aclaaha, dadkii sarreeyey. ilaan doonta dabaqa hoose ka soo baxayaan, kor bay imanayaan. fata'adaw bihi, arrinkaa way dhibsadeen markaa. dadkii hoos deganaa
arrinkaa way dhibtay markay sidaa sameeyeen nin baa fikiray fa akhada fa'san faas buu soo qaatay fajacala yanquru asfala safiina nin ka mid a dadkii hoos deganaa baa wuxuu markaa bilaabay inuu doontii duleeliyo oo u yidhaha war dadkan ma dhibsaday oo odhanaya markaas maxaad noogu imaanaysaan iyo maxaad noo soo maraysaan biyahan hoos haddaan ka duleelino meeshaan ka daasanaynaa arrinkii baa la maqlay markuu ninkaas sidaa sameeyey fa atowhu ninkii bay u yimaadeene waxay ku dhaheen faqaaluu maa laka warriyo ma waartay maxaa kugu dhacay maxaad noo halaagaysaa maxaad noo halaagaysaa oo kugu dhacay qaala wuxuu yidhi ta'addaytum bi nimay waa idin dhibsateen markaan biyo soo aado oo soo raadsado waad i dhibsateen walaa budda lii min almaa biyana waa inaan soo dhaansado oo aan biyo helnaa idinkana markaan idiin soo maro waa i dhibsateen fa in akhaduu calaa yadayhi ninkaas yaro waashay oo raba doonta inuu qarqiyo hadday gacantiisa qabtaan anjowhu isagana way badbaadinayaan wanajow anfusahum naftoodana way badbaadinayaan ninka haddii lawmiya waxaad samayn karto samee iyo waxaad rabto samee haddii lagu dhaho ma aragtay waxa weeyaan doontiina hoosuu ka duleelinaya biyaa soo gelaya iyagiina way maashoobayaan laakiin isagii hadday qabtaan isagiina wuu badbaadayaa iyagiina way badbaadayaan ayib wain tarakuu hadday ka tagaan oo iska dhaafaan oo yidhahdo waxaad rabto samee kulligeen waa halaagsamaynaa ahlakuuhu isagana way halaageen wa ahlakuu anfusahum naftoodana way halaageen marka xadiidkan wuxuu tusayaa alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar sida uu fiican yahay oo ummadda dhibka geysanaysa haddii ummadda kale laga qabto dadkao dhan way badbaadayaan laakiin dilna maxaa nooga jira daris waxaad aragta xun oo kale oo waxyaaba xun samaynaya ilmahoodii sidaa yahay haddaadan la hadlin oo aadan dhihin warnimayo ilaah ka cabsada waxaa naga daaya marka dambe adiga kusoo gaaraysa waa sidaas oo kale xadiidkan markaa shabaha الnabiyu almujtamac alwaaxid bisafiina fi اlbaxri tataqadafuha alamwaaj rasuulkeenna sal allahu calayhi wasalam wuxuu ummaddu ku shabahay sida doon la wada saaran yahay oo koro badda ku jirta oo sidaa markaa mawjadii ay u wado walikulli raakibin fiiha juzءun mucayan qof kastana qayb buu leeyahay walkullu mas-uulun can salaamatiha qof kastana inuu mas-uul ka yahay doontaas sidai ku badbaadi lahayd qof hadduu isku dayo inuu sameeyo wax lagu halaagsamo waa in laga celiyaa dadkao dhan ay ka celiyaan saasuu rasuulka tusay ayib xadiidkan waxyaaba badan baa laga faa'iidaysan waxaa laga faa'iidaysanayaa awalan tarku اlamri bilmacruufi wa muxaabaatu asxaabi اlmunkari yuؤaddii ilaa diyaaci اlxuquuq wa xusuuli اdarari biاlmujtamac haddii dadka aana macruuf la farin oo markaa aan dan laga gelin dadka munkarka samaynaya oo aanan lala hadlin oo bulshadu aynan ka tashinin aynan ihin war dadkaan naga qabta dadkaan dhib bay wadaan bulshaday dhib u keenayaan qayb ka mida ummaddii haddaynan ka hadlin waxay keenaysaa ilaa diyaaci alxuquuqi xuquuqdii in la dayaco wa xusuuli darari bilmujtamac mujtamaciina dhib badan inuu soo gaaro sidoo kale waxaa laga faa'iidaysan xadiidkan wujuudu lmuslixiina amaanu lilmujtamac min alhalaag dad hadday joogaan fiican ummadda ay ku dhex jiraan oo wax hagaajinaya ummadda badbaado ayay u yihiin inay ummadda halaagsanto mar kastoo ummad laga dhex helo dad hadlaya oo dadkii u naseexaynaya oo shartii ka celinaya oo khayrkii faraya ummadda inay halaagsanto waxa weeyaan lagama yaabo way badbaadaysaa laakiin ummadda haddii laga waayo isku mid ay noqdaan macaasi baa xaggaa lagu samayn dhiig baa lagu daadinayaa maal baa lagu dhacayaa waxyaabo xun baa la samaynayaa haddii la dhaho haddee casrigan arrimahaas lagama hadlo qof kastoo ma aragtay nin kastoo maxaa la yidhi naftaada nebiyo ummadda haddii la kala cararo ummadda waxa weeyaan waa halaag laakiin inta haddii la helo dad yaroo dadka xaq u sheegaya iyagana dadkaa badbaaday og tahay laakiin waayahana de waxaba laga yaabaaba dadka khayrka sheegaya in qofkii qof waana loo arkaba oo loo dhaho dee waqtigaan miyaa wax la sheegaaba niyo ama meeshaan isaga tagaa laleeya adiga meeshaan waxaasaa ka socda dadkan waa caadadoodii waxaan kama tegayaan 50 sanaan deganayn waxba lagama bedeli karo ee na dhaafaa le qofkii waa laga yaabo inuu la yaabo xadiidkan waxaa laga faa'iidaysan
muslimiinta inay dadku dhan amaan u yihiin. طيب sidoo kale xadiidkan wuxuu na tusayaa wa fi lxadiidi tacdiibu alcaamati bidunuubi alkhaasa in ummad dhan lagu cadaabayo hal qof dembi uu sameeyey. ilaan hal nin baa soo kacay soo maaha oo doonta inuu duleeliyo hoos ka duleeliyo isku dayay oo yidhi qaylida naga daaya markaan idin marnaba waa na dhibsataan. haddii halkaa nin la dayn lahaa doontoo dhan way halaagsami lahayd. laakiin markii laga hadlay oo haddii lala hadlo oo arrinkaana uu joojiyo ummadoo dhan baa badbaadi lahayn. doonta waxaa laga yaabaa inay saaranta 200 qof 300 qof isagana keligiis u yahay. ummaddu inay tahay intaasoo milyan qofka dhibka samaynayana uu yaryahay. haddii qofkaas la qabto ummaddu waa badbaadaysaa. taana waa laga faa'iidaysan in dembi qof uu sameeyey dadkoo dhan loo cadaabayo. وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. sidoo kale wanaagoo la faro iyo xumaantoo la reebo haddii laga tago in cadaab lagu mutaysanayana xadiidka waa laga faa'iidaysanaya. وفي الحديث sidoo kale xadiidkan waxaa ku jira oo faa'iido ah إرشاد للمسلمين. muslimiintu wuxuu tusaya xadiidkan إلى وجوب التعاون على أمثال هذه الحالات. xaaladahan oo kale markay yimaadaan oo ummadda wax dhibaya la arko oo la qaban waayo inay ummaddu isu kaalmaysato dadka dhibaya sida loo qaban lahaa. فالسكوت مذموم إذا انتشر الفساد والوباء. in la aamuso marka fasaadka uu bato ama cudurradu markay bataan in laga aamuso laga hadlin arrinka waa arrin aad loo ceebeeyey oo aanan fiicnayn ahad waa laga faa'iidaysanayaa. عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أخرجه البخاري ومسلم. حديث كان زينب أمنا زينب باورينيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رسولك اللبا دخل عليها مال مهن كمدة أي يقول لي سوق لي haweenay aad u sharaf badan ayay ahayd. طيب oo runtii deeq badanna qaraabana rasuulka sallallahu alayhi wasallam way ahaayeen. waa tii zayd markaa uu furayo Allah subhanahu wa ta'ala quraanka uu ku tilmaamay falamma qadaa zayd minha wataran zawwajnakaha. ilaahay waa rasuulka u guuriyey subhanahu wa ta'ala. طيب waxay tiri rasuulka iisoo galay fazican isagoo aad iyo aad argagax uga muuqdo wejigiisa. riwaayaad kale waxay leeyihiin wejigiisa wuu gudutay isagoo aad u naxsan. yaquulu wuxuu leeyahay laa ilaaha ila allah ilaahay ma jiro xaq lagu caabudo ilaah xaq lagu caabudo ma jiro alle mooye. waylun halaag baa u sugnaaday murug iyo dhib iyo cadaab iyo murugaay wuxuu u sugnaatay lilcarab carab qabiilka lagu magacaabo. min sharrin shar xaggiisa bay uga sugnaatay qad iqtaraba shar soo dhowaaday. futixa alyawma maanta waxaa la furay min radmi ya'juuja wama'juuj dadka lagu magacaabo derbigoodii baa maanta la furay mithlu haadihi wax sidaan oo kalaa la furay. kanel camala saas duleel yar baa laga furay. waxallaqa rasuulka sal allahu calayh wasalam wuxuu weegaaray biasbicihi fartiisa iyo walibhaama walatii taliiha. suulka iyo fartiisa iyo tan xigta waxa weeyaan stana laga wadaa sabaabada laga wadaa. waxallaqa biasbicihi alibhaama walatii taliiha. fartiisii buu ma aragtay ku laabay suulkuu ku laabay iyo suulka tan ku xigta ama labadaaba inuu isku laabayo sidaa u saaray
sidaasuu yidhi waxaa la furay derbigii ya'juuj wama'juuj baa maanta la furay wax intaa leh ya'juuj wama'juuj qur-aanka wuu sheegay ninkii lagu magacaabi jiray boqorkii ilaahay uu siiyey almashriq walmaqrib dulqarnayn ahaabaa meel ku xiray qoomkii waa kii u yimid oy ku yidhaahdeen ina ya'juuja wama'juuja mufsiduuna fi اlardi fahal najcalu laka kharjan cala an tajcala baynana wabaynahum sadda qaala maa makanii fiihi rabbii khayrun faaciinuunii biquwa ajcal baynakum wabaynahum radma derbi baan dhisayaa آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا وحويري كمان صباح كران ما ندل لي كران أحاديثنا وما داويت الماضي إلهي بقرنا يمشي كجران ما تشينميا ما دتكلا إلهي بقرنا لكن ميل بلغ أودي وين صباح دونان badaha adduunyada dhan bay soo cabbi doonaan waxyaabo badan bay halaagi doonaan maalin kastana godka way qodayaan ya'juuj wama'juuj barnaan soo noqonaynay leeyihin insha allah ma dhahaya ummaddaas wuxuu yihi rasuulkeena sal allahu calayh wasalam baa derbigoodii la furay oo maxay carab u halaagsantay weylu lilcarab rasuulku wuxuu u yidhi waxay leeyihiin ya'juuj wama'juuj dadka ugu dhow ee hadda dariska la carab weeyaan carabta eeshiyay degan tahay soo maa meelaha ay ka soo bixin doonaanna waa aasiya un weeyaan meelay noqotaba meelahaasay ku xiran yihiin waxa ugu horreeya markaa dhibkooda uu soo gaarayo waa carab weeyaan weylu lilcarab min sharin qad iqtarab ayib qaalat markaa zaynab bintu jaxshin waxay tidhi rasuulka markuu sidaa yidhi dhib baa dhici doona oo carab ku dhici doona ya'juuj wama'juujna maanta meeshoodii wax yar baa laga soo furay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah anahliku miyaan halaagsamaynaa wa fiina asaalixuuna iyagoo dad wanaagsan aynala joogaan qaala rasuulku wuxuu yidhi nacam haa idaa kahura alkhabatu xumaatada markay badato wallahu lmustacaan xumaatadu markay badato waa la halaagsamayaa maantana haddee xumaatada adduunyada jirta iyo waxyaabaha la bannaystay wax maanta laga hadli karo male adduunyada waxaa malayna afrikaankaa ugu ron meel hadda adduunyada lagu noolaado oo naftaadana aad badbaadin karto ilmahaagana aad badbaadsan karto ma aragtay waxyaabaha qurunkii ama la banneeyey ee dadku ay leeyihiin waa shay bannaan oo loo ololeeyanayana ilmahaagana aad ka badbaadin karto afrikaaba ugu ron baan u malaynaya marka khabadkii waa batay halaag marka ama cudur baa laisku halaagi ama dabayl baa laisku halaagi ama dadku inay dagaalamaan oo islaayaan baa lagu halaagi saas weeyaan rasuulkeena sal allahu calayh wasalam aad buu u murgay wuxuu yidhi fadnaa imanaysa zaynaba bint jaxshina kamaynan gaabin radia allahu canha waxay tihi rasuulka allow annagoo dad saalixiina oo wanaagsan oo salaad tukanaya oo dadkii la hadlaya iyagoo nalyu yihiin miyaan haa halaagsamaynaa haayo khabadka duubato dadka wanaagsan ee yaryihin nabiyullaahi luut wuxuu yidhi rabbi najinii wa ahlii mima yacmaluun ilaahow aniga iyo ehelkayga bal ehelkiisu ilaahay u baryay maantana meelaha ama dadka la geynayo ama ilmaha wax lagu barayo ama dadka aad ay u jecel yihiin waa meelaha adduunyada hadda ugu macaasida badan wa oo wax qofka uu ka hadli karaba aynan jirin oo dadka qaarkiiba ay saboodgaraynayaan leeyihiin waa shay maarag nacuudu billahi min dalik xadiidkan waxyaaba badan baa laga faa'iidaysan yushiiru alxadiid ilaa xirsi الnabiy sal allahu alayh wasalam rasuulka siduu aadka iyo aadka ugu jeclaa oo ugu dadaali jiray calaa salaamati اlmujtamac min alada aladi yalxaqu bihi ummadda dhibka soo gaaray rasuulkana siduu uga fikri jiray waqad xadara min shari aqwaamin yakunu khuruujuhum sharan cala almuslimiin wuxuuna markaa rasuulkeena aad uga fikiray qowm soo bixi doona oo markay soo baxaanna shar ku noqonaya dadka muslimiinta ah kadibna wuxuu tilmaamay halaaga ummadda ay ku halaagsamayso inuu yahay markuu fasaadka bato fujuurka markuu bato zinadaa badanaysa liwaadkaa badanaya wax kastaa xalaal iska noqonaya wax kastaa caadi noqonaya
qofkaad xaq u sheegto wuxuu ku leeyahay niya uma aragtay kabaha ila gashaan iga gambisuu ku leeyahay waad ugu taagantay xuquuq ma aragtay waalidiintii baa sidoo kale badanaya waxyaaba badan baa badanaya xadiidkan waxyaaba badan baa laga faa'iidaysan xadara الnabiyu mima sala allahu alayhi wasalam mima yalxaqu اlأdaa wالshuruur biاlmuslimiin fi caajil amri mu'aajilihi shafaqatan waraxmatan lahum inuu noo sheegay waxyaabaha lagu halaagsamayo naxariis uu noo naxariisanayo darteed wa kaana bilmu'miniina raxiima idaa daharat almacaasi wajaba cala almu'miniina inkaaruha macaasi hadday dhacdo qof kastoo iimaan leh waxaa ku waajib ah inuu inkiro in la inkiro alla waruxan ma fiicna iska daaya kuma xirno inaad caalim tahay laakiin wixii haddaad aragto ilan macruufka waa shay la yaqaano weeyaan munkarkana waa la garanaya war waxaan ma bannaana iska daaya inaad tiraahdo alwabaa'u min alcuquubaati alilaahiya التي أهلك الله بها بعض الأمم السابقة كما مر فوجب الرجوع إلى الله والنهي عن الفساد لرفع الوباء عقوبات وحكم إذا ذلك عذر إن لقصل لذو أي كم إذا مركا ذلك عذر كالقصل لذنا وحاها بون أمضوا إلى إلهي ونقطه فساد كان ذلك لقلها الله سعذر في إلهي ومضى وقاقاضه فساد كمركا لعليو وشرط ذلك لقعليو مركز الله سبحانه وتعالى عقوبات وذلك قاضية طيب أرمها صوت الحديث كان ولا قفا إليسان والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين